hay'adda Save the Children oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal ayaa maanta magaalada Boorama ku qabatay xuska maalinta Oof-wareenka ama Jeeni-wareenka adduunka oo sanad walba la xuso 12 bisha Noofambar. Munaasabadani oo ka dhacday Hotel Haldoor ee magaalada Boorama ayaa ahayd madal bulshada lagu baraarujinayay saameynta xanuunkaasi, taasi oo sanadkani halku dhig looga dhigay maalgelinta oksijiinta. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay maamulka degmada Boorama, aqoon-yahanno iyo mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Ugu horeyn waxaa halkaasi hadalka qaatay Cabdinaasir oo ah madaxa hay'adda Save the Children ee gobolka Awdal, waxaana uu tilmaamay waxaanu maanta u joognaa halkan in aanu kaga qayb qaadano caalamka intiisa kale maalinta xuska namuuniyada ama jeeni-wareenka waxa loo yaqaano oo ku beegan 12 Noofambar ee sanad kasta la xasuusiyo caalamka inuu yahay xanuunkaasi xanuun dilaa ah oo runtii gaar ahaan caruurta yaryar ugu sii daran una baahan xirfad gaar ah iyo daaweyn si taxadir leh loo sameeyo si loo yareeyo dhimashada. waad arkaysaan oo sida inoogu qoraan halku dhageena sanadkan 4 milyan iyo 200 oo kun oo caruur ah ama dad waaweyn ah baa isku jira ayaa u dhintay adduunka. Innaguna waxaanu ka mid nahay wadamadaas ay sida baan u aafeeyay cudurkaasi jeeni-wareenku ka mid yahay. halku dhaga sanadkuna waxa weeye la dagaalanka oksijiin la'aanta. Save the Children iyadoo ka duuleysa principles-keeda ayaa waxay hortay marka inay xusto oo ka qayb qaadato caalamka kala qayb qaadato xuska maalintaasi oo dhammaan maanta Somaliland goboladeeda laga wada qabanayo oo ah markaasi in la xasuusiyo. inta kadib waxaa hadalka iska daba qaatay madaxa xarumaha caafimaadka asaasiga ee degmada Boorama iyo gobolka Awdal iyagoona ka sheekeeyay xanuunkan iyo saameynta uu leeyahay. waxaynu ognahay xanuunkani inuu yahay xanuun dilaa ah gaar ahaan marka loo eego carruurta da'doodu ka yartaa 5 sano. saas darteed ayaa waxaynu u baahanahay inaan dhammaanteen intaan gamcaha isqabsano u jeesano u dadaalno sidii aynu ula tacaali lahayn xanuunkan pneumonia. maadaama adduunyadii ay maalintii loo asteeyay pneumonia-da laga hadlayo oo meel walba laga sheegayo dhibteedii iyo waxyaabihii ayna gaarsiisay pneumonia-daasi gaar ahaan caruurta ka yar 2 sano iyo dadka waaweyn inay dhibaato adag ay ku hayso. adduunyadiina waxa la isku raacay in la helo xarumihii caafimaadka in laga helo oxygen. marka ka gobol ahaan ka wasaarad ahaan iyo maamul ahaan waxaan ku dadaalnaa in dhammaan xarumaha laga helo oxygen. ana ku hadlayaa afka bulshada waxaan markaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa si sharaf leh hay'adda Save the Children iyo wasaaraddeena sharafta leh ee aad inooga soo agaasimay ama inooga la shaqeeyo markaa cudurkan isaga ee dilaaga walaalaya. dhammaan wada garanaysiin caruurteena dhibaatada ku hayo ama dadkeena waaweyn inta badan xoog ayuu noo xaaqay. marka alxamdulillah maanta hadii la inaga baraarujiyay. ugu dambeyn duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo hadalka qaatay ayaa waxa uu yiri hawshan horta hawl nagu cusub ma waa arrin jirta runtii waynu dareesano anu yarban ayeedii ka maqal jiray labada feedhood baa qofkii la isku geeyay maantana waxa ba jira xanuun la yiraahdo COVID macnaheedu feedhis kuma tagaa laakiin dee sanbabadii baana shaqeynay macnaha looga socdo waa taa weey maanta waxa kabaya ee ka sii daran waxa weey xanuunkan maanta yaala ee COVID-19 laakiin waxa muhiim ah in la wada dareemo horta inay dhibtan jirto oo dadku dhan saameynayso inay yar male oday male islaan male wiil male gabadh male waxa weeyaan waa wax laga simeeyahay taasina waxa u baahan tahay in meel loogu soo jeesto waa maalin kulli xusid mudan maanta oo kale tan la soo hadal qaaday in la isku baraarujiyo ma aha wax maanta bilaabmay oo la leeyahay ka hortaga laakiin waxa weeyaan waa wax jiri jiray oo aynu doonayno dadka inaynu ku baraarujino. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Boorama.